kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa 26 bisha 8 2019 wararka aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo goordhow mas'uuliyiin sarsare kala baxay xarunta gobolka Banaadir iyo toon culus oo ka soo baxay habkii qaraxa loola beegsaday gudoomiye Yarisow madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ambabaxay dalka Japan iyo qorshaha safarkiisa oo la ogaaday Somaliland oo shaqada ka ceyrisay 42 ruux oo kaga shakisay inay la shaqeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya Al-Shabaab oo war ka soo saartay saddexda madaxweyne ee lagu doortay Jubbaland xog ku saabsan weerarkii ugu cuslaa oo lagu qaaday guryo ay deganayeen hogaamiyaal ka tirsan ururka Shabaab Ilhaan Umar oo si kulul kaga hadashay burburinta hantida Soomaaliyeed ee ku hayaan ciidanka Kenya iyo Senator Cabdi Qaydiid oo weerar afka ku qaaday madaxda dawladda federaalka Soomaaliya intii saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warkayaga hadii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe saar kamid noqo saaxiibada joogto hel 24 saac wararkan aan ku baahino qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag faalladaada sidoo kale muuqaalka la wadaag saaxiibada adigoo share gareynaya haatanna warkiyo fidsan ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa mas'uuliyiin sarsare kala baxay xarunta gobolka Banaadir ciidamo uu hogaaminaya taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq Joona ayaa goordhow aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir kala baxay saddex qof oo ka tirsan shaqaalaha gobolka dadkan ay ciidamada kala baxeen xarunta gobolka oo qaarkood jirdil loo geystay sidoo kalena iyagoo jeebeysan gaari la saaray ayaa waxa ku jira ku-xigeenka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir Nuur Axmed Cali sidoo kale dadka la xiray ayaa la sheegay inay kamid tahay qof dumar ah oo ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir sida goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen warar hordhaca oo aan helayna ayaa sheegaya in uu soo galay tuhun la xiriira qaraxii ka dhacay aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir kaasoo mas'uuliyiin badan ay ku geeriyoodeen Nuur Axmed Cali ku-xigeenka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale ka tirsan guddiga qabanqaabada xil wareejinta gudoomiyaha cusub ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Umar Finisha dad ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa inoo sheegay in abaabulka qarax kale oo ka dhaca xarunta gobolka Banaadir looga shakiyay mas'uuliyiinta maanta la xiray warkan degdegta ah ee goordhowna soo gaaray ee tilmaamayay in mas'uuliyiintan la xiray isla markaana looga shakiyay in qayb ay ka ahaayeen abaabulka qaraxii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Banaadir Engineer Yarisow iyo mas'uuliyiinta kale wixii ku soo kordha wararkeena kale ayaad ku daawan doontaan insha Allah madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Japan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Japan oo ka furmayo shir madaxeedka toddobaad ee iskaashiga wadamada Afrika iyo Japan shirweynahan oo socon doona muddada u dhaxaysa 28 ilaa 30 bishan ayaa madaxda dalalka ku buhoobay madashan ururada qaramada midoobay iyo midowga Afrika maalgashadayaasha iyo qubaradu waxay kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac ka faa'iideysiga fursadaha tiknoolajiyadda kor u qaadista iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka horumarinta xirfadaha shaqo abuurka xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda dhaqaalaha iyo maalgashiga wafdiga dawladda federaalka ee uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Yokohama oo martigelinaysa shirkan waxay kulamo kala duwan la yeelan doonaan qaar kamid ah madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi shirkan waxa ka soo qaybgalaya hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo Japan hay'adda qaramada midoobay ee horumarinta bangiga adduunka iyo golaha guddiga midowga Afrika wafdiga madaxweynaha ee Soomaaliya ku matalaya shirkan waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Danjire Axmed Ciise Cawad wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle agaasimaha guud ee madaxtooyada Nuur Diiriye Xirsi iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Bilaal Maxamed Cusmaan dhanka kale Somaliland ayaa shaqada ka ceyrisay 42 qof oo kaga shakisay inay la shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxay shaqada ka joojisay shaqaale ka howlgalayay gegada diyaaradaha magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport shaqalahan ay maanta shaqo joojinta ku sameysay xukuumadda Muuse Biixi ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 42 shaqaale waxaana ay 5 shaqo oo kala gedisan ka qaban jireen garoonka diyaaradaha Cigaal wararkan Helen ayaa sheegaya in sababta shaqaalaha inta la eg ay u ceerisay xukuumadda Somaliland inay tahay inay mushaar ka qaataan dawladda federaalka Soomaaliya oo maamulka hawada kala wareegtay hay'adda duulimaadyada hawada qaramada midoobay ee ICAO waxa xusid mudan in dawladda federaalka Soomaaliya ay muddooyinkii dambe la soo wareegtay maamulka hawada
midaasi oo suurtagal ka dhigaysa in shaqaalaha hay'adda ICAO ka qaadan jiray mushaarka ay dowladda federaalku la wareegto. xukuumadda Soomaaliya ayaa ku doodaysa in shaqaalahaasi soo cadeeyaan inaysan ka mid ahayn shaqaalaha ay dowladda federaalka la wareegtay kadib markii maamulka hawada loo gacan geliyay. 42 shaqaale ee maanta la ceeriyay waxay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ka qaban jireen 5 shaqo oo kala ah maamulka macluumaadka hawada, saadaasha hawada, hagidda diyaaradaha, baakingareynta diyaaradaha iyo dabdamiska. dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah kaga hadashay doorashooyinka ka dhacay Jubbaland halkaas oo 3 madaxweyne oo isdiidan ay ka soo baxeen. Sheekh Maxamed Abu Abdallah oo ah mas'uulka al-shabaab u qaabilsan Jubbooyinka oo ra'iisul idaacadda al-shabaab ee Andalus ayaa sheegay in ay dagaal la gali doonaan dhammaan 3 madaxweyne ee sheegtay Jubbaland. Abu Abdallah ayaa sheegay in Jubbaland ay ku loolameen dowladaha Kenya, Ethiopia iyo reer galbeedka isla markaana madaxweynayaasha la doortay lagu adeegto. waxa uu sheegay in dadka isku hayo Jubbaland aysan xitaa ahayn dad madax banaan isla markaana qori caaradiisa lagu qasbayo inay fuliyaan danaha dalalka shisheeye sida uu hadalku dhigay. geesta kalena mid kamid ah dagaaladii ugu xooganaa ay qaadeen ciidamada Commandos-ka Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya. dagaalka oo isugu jiray weerar toos ah, duqeyn iyo toogasho dhacday ayaa waqti isku mid ah laga fuliyay degmooyinka Jilib, Saako, Bu'aale ayaa Salagle oo ka wada tirsan Jubbada Dhexe. saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa inoo sheegay in qasaar xoog leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka soo gaaray ururka shabaab. sidoo kale ciidanka howlgalka fuliyay waa ciidan cusub oo dhawaan ka soo baxay tababar dibadda ah. degmooyinka Salagle iyo Saako ayaa la sheegay in ciidamada Commandos-ka Soomaaliya dagaal foolka fool ah ay kula galeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab iyadoo kadib dagaalka ay ku soo bireen diyaarado duqeyn culus u geystay dagaalyahanada shabaab oo qasaar xoog leh halkaas ku gaarsiiyay. ciidanka ayaa muddo kooban la wareegay xaafado kamid ah degmada Saako waxaana ay ka fuliyeen toogasho toos ah. sidoo kale Salagle ayaa la sheegay in ciidanka ay la wareegeen isla markaana muddo 20 daqiiqo ay halkaas ku fuliyeen howlgal xoogan. degmada Bu'aale ayaa la sheegay in la duqeeyay gurigii gudoomiyaha gobolada Jubbooyinka ee al-shabaab Sheekh Abu Abdallah inkastoo la sheegay xilligaas inuu ka maqnaa guriga. dhanka kale degmada Jilib ayaa la sheegay in la duqeeyay kolonyo ciidan oo halkaas marayay oo ku sii jeeday dhanka gobolka Shabeellaha Hoose waxaana la sheegay halkaas in lagu duqeeyo 10 gaari oo ay wateen ururka shabaab. si rasmi ah looma oga qasaaraha ka dhashay weerarka balse waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad 100 dagaalyahan halkaas looga dilay ururka al-shabaab. dhanka kale Ilhaan Cumar ayaa ku baaqday in wax laga qabto ficilada ay wadaan ciidanka Kenya. Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadashay burburinta ay ciidamada Kenya ku hayaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee Koonfurta Soomaaliya. Ilhaan oo qoraal kooban soo dhigtay Twitter-keeda ayaa ku sheegtay in dowladda Soomaaliya iyo ciidanka AMISOM looga baahan yahay in wax ay ka qabtaan dhibaatooyinkaasi. sidoo kale waxay intaas ku dartay Hormuud iyo shirkadaha kale ee ku yaala dalka in si weyn ay kaga qayb qaateen horumarka gaar ahaan dhanka tiknoolajiyadda. hadalkan Ilhaan Cumar ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan ciidamada Kenya ay qaraxyo ku burburiyeen xarun shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku lahayd gobolka Gado. tallaabadaas waxaa cambaariyay xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xukuumadda Soomaaliya. ugu dambeynna Senator Cabdi Qaydiid ayaa eedayn kulul u jeediyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa eedayn kulul u jeediyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. isaga oo ka hadlayay shir maanta guddiga dastuurka uga furmay Garowe ayuu sheegay in 10 cutub ay horey ugu gudbiyeen dowlad goboleedyada ee dib u eegista lagu sameeyay aysan wax jawaaba ka soo bixin. hase yeeshee uu rajeynayo 15 kale ay gudbin doonaan in laga miro dhalin doono kana soo jawaabi doonaan. sidoo kale waxa uu ku eedeeyay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kaalintii laga doonayay ee dib u eegista dastuurka aysan ka soo bixin. rabaa inaan meesha iyadana ka cadeeyo dastuurkaani Soomaali baa leh, shacbiga Soomaaliyeed baana la rabaa in loo geeyo. shacbiga Soomaaliyeed baa leh taladiisa iyo go'aanka gaaridiisa. marka inta aan baarlamaanka loo geyn ama aan referendum iyo Soomaali la aadin waxaa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato. waxaad moodaa haddeer 3 sano aan ku sii dhowna waxaa aad iyo aad runtii anigu aan cadaynaya aan rabaa inaan iraahdo afba waxa ku iraahdo madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyadu gacantii loo baahnaa inay siiyaan dastuurka qaranka inay siiyaan
waxaan leeyahay lama siin baan leeyahay waxaan rajaynayaa wixii taga waa tageen wixii hadda ka dambeeya in laga daayo muxuu ahaa siyaabo kale in la isku arko waxaan rabnaa si toosa dadka Soomaalida madaxda ay wakiilka ka dhigteen heerkay rabaan ha joogeen dastuurkan inay gacan ka geystaan ayaan anigu qof munaasabadan uga soo jeedinayaa guud ahaan war wixii dal iyo daafaha caalamka naga soo gaaray waa nageenta haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe saar ka mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino kuma hadsanid inaad daawatay muuqaalkan